nabadgelyadii aynu waday hadday doonto wayba jabtay inagu aynu ku koornay way jabtay waayo waa la nagu kacay oo waa la dilay oo waxa la yiri arrin khaldan baa gasheen oo waxaan leeyahay waxaynu isku ogeyn waa burtay maamulka Soomaaliland la kulan waxaan kala kulanay wuxuu ahaa ninkii suuqa lagu jiray ee furkiisa la qaatay baan kala kulanay waxaan niri ninka nimankii dilay ma noo haysaan baan niri gacanta Ilaahay noo soo gelisaan waxaan ku hadlano kala ma jiraan furkiina kama aanan qaadin baanan ka qaadin suuqa propaganda maraysa waxa weeye niman kala dhoojaan siyaasada yihiin maamulka Soomaaliland bay u tageen bay qaateen fur bay qaateen nimankaas la xaajooday waxa jaaho kale oo na dhexmaray ma jirto aan ahayn nimankii ma noo haysaan kamera dul qaadanayno waxa joorfalka nagu ah ee media ay soo dhigeen maamulka Soomaaliland annagoo aan ayidsanayn maamulkooda iyo shaqadooda iyo dastuurkooda toon waxaan ragga la laayay ee la diray ee haddana lagu duqayay ma yeelayno media khaldan ee ay soo dhigayaan Facebook annagu dhulbahantaan la talanahay taana baxayno kamana baxsin ninkii kuladna hal uu furfayaalay xagaan maxaamil halkaana waxa ka muuqanaysa ku wada hadalay oo ahaa labadii nin ee gacan ku dhiiglayaasha baanu idiin haynaa oo idin soo wareejinayna inta waxaan kuma aan wada saddexda nin ee halkan ku dhintay ee jaamacsiyaad nin walba waa la joogtay saddexdaba ciidanka Soomaaliland baa joogtay nin walba madaxay ka joogteen qaabka ay Soomaaliland saakada ku bedeshay wixii aanu ku wada hadalay oo ilaahay saraakiishoodii ilaahay wasiiradoodii aan idinka maqnaan qaabkay saaka markiiba ku bedeshay waa qaab aan foolxumo mooyaane wanaag dadka muslimka u kordhiyo waanu taageersanahay saddex iyo soddonkiina guddiga ee dhulbahante ee aanu qaybinay go'aanka ka soo baxaan anagu ku taageersanahay Soomaaliland aamin male wax aamina ma lahay waxay sheegaysaa waa been wax Allah waxay bilaamin ku hadlaysaa waa been waxay umada u sheegaysaa waa been warma ninka saaka tumanka wasiir saaka halka fadhiyay hadalkan ku niri saacada gudaheeda ku bedelay warma kuwa saar u sheegaya dadanahay odayaasha beesha jaamacsiyada 22 ah shaqaaqadii laascaanood ka dhacday marka ugu horeysa jaamacsiyad 3 nin baa kaga dhintay 7 ninna way ka dhaawacantay 7 nin ee dhaawacmay iyo 3 nin ee dhintay midna aaskiisii lama qaadan midna looma qaadin wixii yarayda la qaadan jiray shafshafada ahayd waxaanu haddaanahay odayaasha ugu hadalay ragna dhulbahantay wax la qabaa ninna waa ninkii gaarka ninka gaarkaanu ka hadlay wax kale aanu ka heshiino ka wada hadalnay ma jiraan haddii waxna laga sameey beenna sheegi mayno ilaahay baa nagu og iyagana waxa weeye waxaan anagu sameynayna dafiri mayno ragga iyaga qaarkiina kamarada nabaana arkaynba oo ilaahay nagu og marka waxaan u cadaynaynaa ummadda islaameed in waxaanu ka hadalnay iyadoo ragga hore aaskiisii iyo magtiisii iyo wixiisiiba maqan yihiin in aan ninka waxaan ahayn aanan ka wada hadlin ka koobnay dhulbahante iyo fiqishini waanu anagu taageersanna ka dhawaaqina waxa weeye waxaanan la soconno ogeyn oo waxa weeyaan kamaradan iyo waxaan lagu sii daayay adduunka maraya ay tahay TV-yadoodu aan Hargeysa laga sii daylayo anagu TV-na maanan ogeyn maanu aadina waxaan noo yeedhay maamulka Soomaaliland wixii ka joogay waxay noogu yeedheen iyagoo heshiis nagaga doonayeen labadii nin ee ninkii u dambeeyay dilay ummadda meesha ku xaqantay labadii nin ee ninka u dambeeyay dilay baanu idiin haynaa oo idiin silsiladaysan oo idiin xidhan nin waad nagu soo wareejinaysaan waana qisaasanayna waxaanu u sheegaynaa dhulbahante iyo caalamka iyo islaamka go'aanka iyagu waa guddigii 3 ahayd wixii ay noogu taliso taasaanu ku daba fadhinaa wixii aanu saaka isu sheegnay lahayn niman baanu idiin haynaa inay ahayd been la rabo in lagu sawiro wartaasi waxba nama yeesho caalamka waxaan u sheegayaa waa nagu wallaahi oo waa nagu billaahi oo waa nagu tallaa waxa dhacday picture kiriimna laga qaaday ay wateen iyagu picture-kiina in propaganda badan laga sameeyay waxyaalo badan oo meesha aan u tagin oo aan ka hadlinayn la faafiyay dhulbahante iyo cid kasta oo Soomaaliya hawshan daraysa waxaan u sheegaynaa waxyaabaha la faafinaya waa been wax dhacayna maaha wax dhici doonana maaha maamulka Soomaaliland waxa ka sugaynaa
ballantaan galay nimankii inay noo keenaan inaan qisaasano dilayno wax aan yeelin oo kale ma jirto nabadgelyo lagu heli maayo wixii kale